xabaaluhu iibsanayay fiqi waxa laga siiyaa sheer baa laga siiyaa xabaalihii dadka laga qufayay marka fiqi cidna kama gumaysna xabaalaha lacagtoodii ragga wax ka qaatay buu ku jiraa masaajidada cagafyada la geliyay ragga qaatay buu ku jiraa yaa ka gunsan garowa waa barwaaqo waa amni waxa weeyaan annagu lacag baanu bixinayno sheerar baan xitaa iibsanay wasiirka arrimaha guduhu sheer buu iibsaday xitaa wuu ka iibsaday uu ka bixinayka ka iibsaday ana gaajina waxa ay xafladdan ka qayb galay muxuu ahaayay maamuus laho maartay safiir joogaan ka qayb galay laakiin isagu madaxweyne ku sheegiisa wasiir baa soo dhaweeyay markuu Itoobiya tago isagana muxuu ahaayay maqaamka ka hooseeya lagu soo dhaweeyaa Itoobiya iyo Puntland xiriir dawli ah ka dhaxeeya oo is-ixtiraam laho ganacsi laho waxbarasho laho amni laho laba dal oo deris leh baa ka dhaxeeya muxuu ahaayay kama dhaxeeyo maartay maalin walba sida ay jilbaha u haystaan fiqi iyo xasan iyo kooxdu si jilbaha u haystaan maaha si dal deris ah oo ganacsi ka dhaxeeyo oo diblomaasiyada ka dhaxaysan u macaamila ina kama gooyaysan fiqi marka xabaalaha uu qufanaya iska daayo awalna al-shabaab uu ahaay waa la garanaya inuu al-shabaab ahaay isagoo koofiyad xun oo muxuu ahaa maxaakiimtii taagan sawirkiis meel walba uu yaalaa marka ina kama gooyaysna isaga dab walba dambas walba isaga fariistay kii al-shabaab soo fariistay kii maxaakiimta soo fariistay hadda muxuu ahaay meel walba fadhiya marka ina kama gooyaysna halkan gudnimo ma taale gobonnimo taale iyo dawladnimo Itoobiya iyo Puntland waa laba dawladood oo deris ah oo ganacsi ka dhaxeeyo oo danaha amniga ka wada shaqeeya oo maaragtay wax kasta oo dawladda wadaagaan laba dawladood deris ay wadaagaan oo xiriir dhex mara oo istixgelin leh oo ixtiraam leh weeye Puntland maamul Soomaaliya hoos yimaado miyaanu ahayn sidee ku noqonayaa dawlad si toos ah ula macaamilaysa Itoobiya inta muxuu ahaayay uu fulayo sharciga dawladnimada ee federaalka ee dalka ka dhaxeeya inta uu fulayo oo muxuu ahaayay sharciga iyo siyaasadda laga heshiinayo dastuurka Puntland baa qaba Puntland inay dawlad sideedii ula dhaqmayso caalamkuna waa ula macaamila caalamka ayaa ixtiraafsan sida ula macaamila Mareykanka ula macaamila Itoobiya ula macaamisha dalalka kale geeska Afrika iyo saa ula macaamila midowga Yurub saa ula macaamila iyo United Nationka marka ilaa inta Soomaaliya soo gaarayso oo sharciga iyo siyaasadda laga heshiinayo oo dawlad dalkan dawladnimadiisa damaanad qaadaysa imanayso waxa weeye Puntland waa dawlad arrimaheeda maamulanaysa cidna uma daba fadhido arrimaheeda ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays plus xawaare sare iyo internet tayadiisa la hubo ku shubo $17 iyo bar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah waxa intaas ku dheer adeega nashaad IPTV oo aad ka maqsuudi doonto uga shuba ii dahab kood nambarka xidig hal eber hal 4 gees